walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahadoo dhan iska leh. ilaahay nicmooyin fara badan ayuu ina siiyey. nicmada iimaanka iyo islaamnimada ayaa ugu qaalisan. waxaynu walaalayaal aad iyo aad u dareensannahay dadkeenna nool wakhtigu inuu socdo. xagga aakhira ayaynu u sii soconnaa, adduunyadana waa laga sii guurayaa. qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajal xadaysan ayuu u yeelay. marka wakhtigiisii ay gaadhana adduunyadan wuu ka tegayaa. maalmahaasi iyo habeenada ayna dhaafaya walaalayaal, iyo usbuucyada iyo wiigaga, bilaha iyo sanadadaasi waa cumrigeenni oo la laalaabayo weeye. wakhti kasta oo ku dhaafaa waa in ka goday oo ka nuqsaantay cumrigaagii iyo wakhtigaagii. shalay baynu ramadaantii hore soo dhaafnay, maantana bisheedii baa ina haysa. qofkii ilaahay jalla wacalaa uu ku simo. waxaynu joognaa bilowgii bisha shacbaan. waxyaabo markaa bishan ina quseeya ayaynu maanta isku baraarujin doonaa si kooban. walaalayaal, ugu horrayn aynu ku cibro qaadanno wakhtigaasi imakana aad moodda inuu ka sii xag jiro ee sida degdega u dhammaanaya. aynu u diyaar garowno geediga dhabta ah iyo horjoogsiga rabbigeen jalla wacalaa. marka labaadna waxaynala gudboon inaynu ogaanno bishan shacbaan la idhaahda ee ramadaan ka horraysa hadyigii iyo dhaqankii rasuulkeenna suubani siduu ahaa sala allahu calayhi wasalam. bishan walaalayaal, ugu horrayn soomkeeda rasuulku wuu badin jiray calayhi asalaatu wasalaam. soomkeeda sunnaha wuu badin jiray. oo waxaa bukhaari iyo muslimba ay wariyeen hadalka ummi lmu'miniina caaisha binti abi bakrin radia allahu canha wa ardaaha ay leedahay: wamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama istakmala siyaama shahrin ilaa ramadaan, wamaa ra'aytuhu akhara siyaaman minhu fii shacbaan. bil rasuulkeedu soomkeeda uu dhammaystiray maan arag ramadaan mooyaane. bil uu ka soom badnaa bisha shacbaanna ma arag bay tidhi. macnihii 11 bilood ee kale ee aan ramadaanta ahayn, bishuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ugu soom badnaa waa bishan hadda aynu joogno ee shacbaan weeye. xadiid kale oo isna saxiixa ku yaalla, caaisha waxay tidhi: kaana yasuumu shacbaana kullah. bisha shacbaan rasuulku u wada soomi jiray sala allahu calayhi wasalam. markay tidhi dhammaantii wuu soomi jirayna, xadiidkaa hore ayaa fasiraya oo in yar oo ka mid ah mooyaane bishaa wuu soomi jiray. macnii bisha shacbaan badideeda rasuulku wuu soomi jiray sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, xikmadda uu rasuulku u soomi jiray haddii hoos loogu dhaadhacay waaba la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. oo saxaabigii uu jeclaa isaga iyo aabihiiba ee usaama ibnu zayd la odhan jiray radia allahu canhuma ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa markuu arkay rasuulka oo aad u soomaya bishan shacbaan soomka sunnaha ah inuu weydiiyey oo uu yihi: maxaa kalifay rasuulka ilaahay ow sala allahu calayhi wasalam? waxaanuu rasuulku ku jawaabay: daaka shahrun yakfulu nnaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan, wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin, fauxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im. rawaahu nnasaa'iyu wa axmedu wa huwa xadiidun xasan. wuxuu rasuulku ku jawaabay sala allahu calayhi wasalama: bishan shacbaan waa bil u dhaxaysa ee rajab oo ka mida bilaha xurmada leh iyo ramadaan oo bisha weyn ee qiimaha badan ah. labadaa bilood oo mid walba dadku ay qadariyaan ayay u dhaxaysaa. sidaa awgeed baa dadku khaflad bay kaga sugan yihiin bisha soomkeeda iyo cibaadadeeda. khaflad bay kaga sugan yihiin. wakhtiga dadku ay had iyo jeer iska qafladaysan yihiin ee cibaadadiiyo khayrka ay ka sii jeedaanna in khayrka qofku uu ku dadaalo oo uu ka faa'iidaystaa waa mid muhiimadeeda leh, gaar ahaan cibaadada markaa qafladda lagaga sugan yahay. waa xikmadda labaad ee bishan acmaasha dadka ayaa rabbulcaalamiina xaggiisa loo rafciyaa. camallada xagga rabbi baa loo kor yeelaa
waxaan markaa jeclaystay baa rasuulkeenu leeyahy sala allahu calayhi wasalama anigoo sooman in camalkayga la rafciyo ilaahay loo bandhigo walaalayaal waa laba xikmadood oo labaduba aada iyo aada u muhiima ahlulcilmiga qaarkood xikmado kaley sheegeen waxaa ka mid ah wuxuu rasuulku u soomi jiray iyadoo ramadaan la weynaynaayo soomkaa shacbaanna raatiba oo kale ayuu uga dhigi jiray soomka ramadaan ee faralka ah sida salaadaha faralka ah qaarkood ay uga horrayso salaad sunno ah oo raatibo la ydhaahdo oo kale ayay xikmaddu ahayd bay leeyihiin waxaa kaloo ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaameen xikmaddu inay noqon karto mar haddii cibaadadii soomka ee ramadaan ay soo dhowdahay in soomka nafta lagu sii tababaro oo ay sii qabatinto si marka soomka faralka ah ee ramadaan uu bilowdo soomku aanu ugu cuslaanin oo uu naftu mid ay la soo qabsatay oo ay ugu soo tababaratay ugu noqdo xikmadahaasoo dhanna inay jireen iyo qaar kale oo weliba aynaan garanahayn waa mid suuragala sida alimaamu sancaaniyuba subul salaamka uu ku tilmaamayo marka walaalayaal almuhiim waxa inala gudboon inaynu bishan soomkeeda badinno innagoo ku dayanayna rasuulkeennii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam faqad qaala allahu subxaanah laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanah xadiidka abi hurayre ee tilmaamaya ida intasafa shacbaanu falaa tasuumuu bisha shacbaan marka ay kala badhanto ha soomina xadiidkaa tilmaamaya ahlulcilmiga qaar badan baa ka hadlay oo hadal ka keenay inuu sugan yahay haddiiba se la ydhaahdo wuu sugan yahay waxaa lagu xambaarayaa sida ahlulcilmi waaweyniba ay tilmaameen qofka bishaa shacbaan qaybteeda hore aan soomin ee intaa dambe uun inuu soomo caadaysta ama qofka bisha shacbaan oo dhan intuu soomo ramadaanna kusii xidhiidhiya ee labada bilood dhammaantood wada sooma ee soomkooda isku xidhiidhiya walaalayaal taasi waa arrinta ku saabsan soomka sunnaha ah ee bishan lala imanayo arrinka labaad ee muhiimkaahi wuxuu yahay ee aynu isku baraarujinaynaa bishii hore ramadaan waxaa jiri kara dad lagu lahaa soomkii ramadaan wax lagaga lahaa oo qof ama xanuunsanayay oo xanuun wax ka midii uu ku dhaafay ama safar mid wax ka midii uu ku dhaafay baa iska dhici kara inay jiraan weliba dumarka oo kale ayaa arrintaasi had iyo jeer ay ku badan tahay oo waxaa dhici karta bishii ramadaan qayb ka mida soomkeedu inuu kaga tegay tahaaro la-aan daraaddeed inaanay tahaaro qabin oo aan soomka iyo salaada loo ogolayn sidaa awgeed baa qofka ramadaan wixii ka tagay cudurdaar soomka ku dhaafa 11 bilood ee u dhaxeeya labada ramadaan wakhtigu doona ayuu ka qalayn karaa waa wax kollay qofka laga doonayo waxa u fiican inuu hore deyntaa saaran inuu hore isaga gudo ayaa u qurux badan laakiin waxa la yidhaha waa waajib muwasaco wakhtigiisu ballaadhan yahay oo wakhtigaa dheer ama xagga hore ama dhexda ama xagga dambe u kala iman karaa ha yeeshee bisha shacbaan mar haddii ay soo gashay wakhtigii markii hore faraha badnaa dee wuu soo koobmayaa haddii qofka bisha shacbaan ay uga hadho in yaroo kooban oo maalmihii ka tegay uun leeg oo ku saameelan maalmaha inuu soomo oo soomkii hore lagu lahaa uu waxa weeye ku buuxiyo ayaa waajib ku ah oo saaran caaishana waxay leedahay radia allahu canha wa ardaaha sida bukhaariga iyo muslimka ku sugan kaana calaya asawmu min ramadaan famaa astatiicu an aqdiyahu ila fi shacbaan bisha ramadaan soomkeeda wax ka mida laygu yeelan jiray dabadeetana maan awoodi jirin bishaa shacbaan gudaheeda mooyaane inta ka horraysa maan awoodi jirin sababtaanay awoodi jirina xadiidkaa tilmaamayo oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa xilkiisu saaraayo ee xaq dhowraysay markaa rasuulku inuu yimaado iyadoo sooman ayaa waxa weeyaan markaa ay iska ilaalinaysay sidaa awgeed qofkii bishii ramadaan soomkeedii wax lagaga lahaa bishanaa fursaddii ugu dambaysay ha isdhaafiyo cudurdaar la-aanna qofku inuu soomkii bishii hore lagu lahaa ramadaanta iska gaadhsiiyaa uma bannaana mid waxa weeye saxana maaha arrinta walaalayaal saddexaad ee aynu baraarujinaynaa waxa weeye bishan shacbaan habeenkeeda kala barhka ama 15
waxaa ku soo arooray axaadiis baa ku soo aroortay axaadiistaasoo tilmaamaysa inuu ilaahay soo dego qaarkoodna waxay sheegayaan ilaahay inuu khalqigiisa daalacdo oo uu dabadeeta u dembi dhaafo qof kasta oo ka mida mid mushrik ah oo shirki ku sugan iyo mid mushaaxin ah oo walaalihii qalbiga wuxugu hayo mooyaane xadiidtaasi saxaabo fara badan bay ka soo aroortay oo ilaa 8 saxaabi ugu yaraana haddaanay kaba badnayn marka ahlulcilmiga bar ka midi waxay mareen xadiidtaasi inay isxoojinayso ay isquweynayso oo macnihii ay tilmaamayso inay sugan tahay oo asal sugan ay leedahay halkaana kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa bishan shacbaan inaynu waxa weeye ku dadaalo isa saamaxaada oo wixii walaalaha aad markaa ku qaniisanayd ama aad uurka iyo caloosha ugu haysay inaad iska tuftood iska saamaxdo had iyo jeer dadku dee way isqoonsanayaan waa la kala rayi duwanaanayaa arrimahaasoo weliba arrimo adduunye u badan ayaa lagu kala baydhayaa markaa qofkii walaalkaa ee muslima eed halkan wuxugu haysay hadduu doono ha kaaba gardaraado ha kuguba xadgudbo iska saamax oo iska cafi waayo inagoo allahayna abuurtay subxaanah had iyo habeen baynagoo ku qaldamayna oo dambaabayna oo meel kaga dhacayna awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ayaynu haddana cafiskiisa sugaynaa oo aynu dembi dhaafkiisa sugaynaa alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum sidaynu haddaba inagu u jecel lahay inuu ilaahayna cafiyo inoo dembi dhaafo walaalaheenna muslimiintaana aynu iska cafino oo aynu iska saamaxno oo qalbiga aynu ka sii dayno arrinta la idhaahdo walaalayaal shaxnaaga iyo uurxumada dadka muslimiinta loo hayaana waa arrin khatar badan weeye oo xadiidkii kale abi hurayre saxiixa muslimka ku yaalay ayaaba wuxuu tilmaamayay acmaasha ilaahay waxaa loo bandhigaa acmaasha bani aadamka maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kasta oo isniina markaasaa ilaahay jalla wacalaa u dembi dhaafaa addoon kaste mid mushrik ah oo xaqii ilaahay duudsiyey iyo mid walaalkiiyo isaga uurxuma ay dhex taalla mooyaane markaasaa ilaahay yidhaha labada uurxumadu ay dhex taalleen wax isu haya utrukuu haadayni xataa yastalixa labadan ka taga oo yaan loo dembi dhaafin yacni loo dembi dhaafi maayo ilaa ay ka heshiinayaan wakhtiganaynu ku jirana waa ogtiin oo iyadoo mar walba dadku isqaniinaan haddana dee waxyaabo kale ayaa inoo dheeraa marka walaalayaal aynu isa saamaxno aynu ku dadaallo waxa weeye bisha ramadaan inagoo qalbiga dadka wuxugu hayna inaanay inoogu soo gelin habeenkaasi inaanu inoogu soo gelin habeennaba aanu kuugu soo gelin oo dadka waxa weeye aad iska cafido cafiskaana adduun iyo aakhiraba wax kuugu bata oo kuugu wanaagsanaada mooye waxba kaaga dhinmi maayaan waxna kaaga xumaan maayaan walaalayaal guud ahaan camallada khayrka iyo wanaagga aynu ku dadaallo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u noqonno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga inuu inoo fududeeyo aynu weydiisanno allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina aqulu ma tasmacuuna waastagfir allah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin yaqulu alxaqa wahuwa yahdi asabiil waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah ilahu alawaliina walaaakhiriin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وحكولين يسكو براروجينينا عافماتكو ونعمة آدي آدو غالية nicmooyinka waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo ayuu ka mid yahay xanuunana sidaa ogtiin way jiraan ilaahay aynu tala saaranno oo aynu qalbiga ka cuskanno asbaabta mujarabka ah ee saxda ana iyadana aynu ku dadaallo baaraka allahu fiikum ilaahayna aynu caafiye iyo balaayo la'aan weydiisanno oo saxaabigii la odhan jiray alcabaas ibnu cabdilmuطalib ee rasuulka adeerka u ahaa sala allahu calayhi wasalam markuu u yimi ee uu ku yidhi kelimaad rasuulka ilaahay ow ibar aan ku ducaysto qaala sal illaaha alcaafiya ilaahay caafiya weydiisa buuhi wuxuu idhi waan ka tego waxoogay baan ka maqnaa haddana waan ku soo noqday
wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam sal illaaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira ilaahay adduunye iyo aakhiraba inuu caafiyo ku siiyo ilaahay weydiiso caafiyadaasoo macnaheedu noqonayo adduunyada qofka ilaahay intuu adduunyada joogay inuu ka badbaadiyo aafooyinka kala duwan kuwa jidhka ku dhacee xanuunada iyo cudurradu ay ka mid yihiin kuwa xagga diinta kaga dhaca oo kaba sii khatar badan kuwa xagga adduunyadiisa ku dhaca sida maalkiisa iyo awlaaddiisa iyo oryihiisa iyo eheladiisa kale iyo waddankiisaba aakhirana ilaahay jalla wacalaa caafiyadaa weydiiso inuu ilaahay kuu dembi dhaafo oo jannada ku geeyo imtixaanada waaweyn ee aakhirana oo naartu ay ugu khatar badan tahayna uu kaa badbaadiyo marka ilaahay caafiye aynu walaalayaal weydiisanno adkaarta rasuulka ka soo aroortay sala allahu alayhi wasalama ee muhiimka ah ee dhaxalgalkaana aynu baranno oo aynu akhrisanno aynu ku dadaallo wixii asbaabana aynu la nimaadno waxaan ku sii darayaa oo kale wakhtigan aynu joogno waa wakhtigii kaliisha ama jiilaalku gebagabada ahaa ilaahay baa mahad leh roobkii waxaa la sheegayaa meelaha qaar inuu ka da-ay ee aadna uu qurux badan yahay oo idinka arka ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu roobkaasi inoo shubo ilaahay baynu weydiisanaynaa cirka madar khayr qaba inuu inaga siiyo waxaanaynu isu sheegaynaa walaalayaal wakhtigan oo kale ilaa roobku uu ka da-ayo oo dooggu soo baxayo kolley waa wakhti iska adag miyi iyo magaalaba dad badan baa jiro oo iska dhibaataysan ama xaaladoodu ay hoosayso waa wakhtigii dadka ilaahay wax siiyey inay wax sadaqadaystaan oo dadka baahan ay ka warhayaan biyo iyo baadba ay la garab joogsadaan aayaadka iyo aadka muhiimka u ahayd taana walaalayaal hala ogaado allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annar allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma ashfi mardana wamarda almuslimiin allahuma ina nasaluka alcaafiyata fi dunya walaakhira اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه